Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maalin wanaagsan akhyaarta kulligiin meel walba aad joogtaan waa idin salaamay. Salaam kadib insha Allah muuqaalkani waxa uu hadli doonaa qaabka qofka uu iska diiwaan geli karo siba koorsooyinka aan bixino asoo jooga Soomaaliya. Qaab aad u fudud oo casri ah ayaan kusoo kordhinay oo uu qofku asoo mobilkiisa isticmaalayo koorsooyinka uu qaadan karo uuna ka mid noqon karo bilaa carqalad la'aan oo toos ugu qaadan karo si automatically ah. Systemka dhan waxaan ku sameynay qayb waxaan kusoo kordhinay oo aad u fudud maadaama qaabkii hore ee dadka ay ku adkeyd oo shuruudo badan oo marayo qofka inuu waxyaabo badan oo qofku u jahwareeri jiray. Marka qofka inuu koorsada iibsado aad bay u sahlan tahay. Waxaad sameynaysaa Chrome-ka ama browser-ka fur. Markaas waxaad soo booqataa website-kaas ku qoran tahay somtiacademy.com. Markaad soo booqatid insha Allah halkaan aad imaan doontaa page-kan adoo mobilka isticmaalaya. Marka waxyaabo badan baa arkaysaa. Okay. Marka waxaad doonaysaa koorsooyin ka mid ah koorsooyinka aad doonaysaa. Misana waxaad doonaysaa koorsada advanced oo kale oo qaybta istiraatiijiyadaha. Markaa ku dhufsanaysaa markaa ku dhufsatid waxaa imaanaysaa page-kan markaa wadada hoos u wadeeda macluumaadka koorsada akhrinayda description muhiim waaye. Koorsada waxay ku saabsan tahay ayadoo faahfaahsan qaar ka mid ah casharada koorsada mid ka mid ah casharada oo price action-ka ah. Casharkaas ama video-gaas hordhaca markii sida ujeed ka dhalkan oo seelka ah halkaan halkaan ku xirmay casharka markaad daawatid walaal oo aad isdhaahdo koorsadan kugu habboon tahay oo istiraatiijiyada price action-ka aad u baahan tahay waxaa lagu dhahay fadlan qaybta hoose macluumaadka ku buuxi. Marka adiga halkaan baa hore daarto inaad ka qaadato koorsada halkaan magacaaga saddexan ku qoraysaa. Okay. Maxamed Xasan Cabdi oo kale email-kaaga ku qoraysaa. Halkaan qoraysaa lambarkaaga ku qoraysaa tusaale ahaan lambarkaaga anyway aad qoraysaa ma garatay. Markaa ku qortid waxaa leedahay send markaad dhahdid payment method ayaa imaanaysaa. Qaybta marka waa qaybta lacag bixinta. Saddex option ayaa haysataa lacagta ku bixi kartaa koorsada. Dadka qaar waxay dhaheen koorsada inaad kusoo biiraan rabaa laakiin Mastercard ba inaa haysato ma shardi ah si aad koorsada u soo biir. Waxaan kusoo kordhinay qayb oo qofkii Mastercard haysan oo lacagta EVC ama Zaad ama Sahal uu ku bixi karo asoo dalka jooga. Marka adiga payment method nooca doonto qaabka aad dooranaysaa. Tusaale ahaan EVC aad dooranaysaa haddaad rabtid inaad dooratid EVC ayaa click dhahaysaa. EVC markaa click dhahdo halkaan uu keenayaa oo ah taleefankaaga qaybta lacag bixinta si automatically asoo ku gelinaa lambarka iyo qaabka lacagta loo dirayo. Marka adiga fargees baa ku daraysaa. Markaa ku dartidna lacagtii ayaa hore ka diraysaa oo wuxuu ku leeyahay PIN-kaaga geli. Wuxuu ku geynayaa qaybta PIN-kaaga gashanaysaa whatever adiga markaa PIN-kaaga gashanaysaa. Markaad gashatid lacagtii sidaas aad isku diiwaan gelinaysaa. Haddii kale haddii aad joogtid Somaliland ama Hargeysa ama gobollada waqooyi gobol kastoo ka mid ah waxaad dooran kartaa Zaad ayaa dooranaysaa. Zaad markaad doorato asaas automatically lambarkii iyo lacagtii ku gelinayaa. Marka adiga fargees raacsinayda PIN-kaaga gashanaysaa easy lacag saas ku diraysaa. Haddii aad isticmaashid Sahal oo kale
adeega sahal aad dooranaysaa. Markaad dooratid afar gees alla aad ku taabanaysaa, qaabkaas asna aad ku diraysaa ma garatay. Qaabkaas aad u diraysaa marka qaabkaas markaa lacagta usoo dirtid insha Allah ayaa waxaa bilaabanaya casharadii ayaa ku bilaabanaya. Casharadii ayaa lagu fasaxaya marka soo laabasho wanaagsan asxaabta. Markani waa markii aad lacagta bixisid qaybtana lagu furi doonaa casharadan. Casharada markaa tusaale ahaan koorsada basic tusaale ahaan kasoo qaadanay. Koorsada basic waatana noocan weeyaan, qaybtana ka helaysaa akademiga. Halkan waxaa yaalo qoraallo oo ku anfacayo oo muhiim ah sida taariikhda forex oo qoraal ah, xog ku saabsan duleelka, faraqa u dhexeeya stock market iyo forex-ka. Adiga intaas waxyaabo badan aad ka helaysaa, macluumaadkaas aad akhrisan kartaa. Sidoo kale qaybtani markaa koorso kusoo biirto halkani qaybta ugu sareysa meeshaas calaamadeey qofka wuxuu ka helayaa casharadii ayuu ka helayaa ma garatay. Casharadii ayuu ka helayaa marka qaybtaas aad ku dhufanaydaa. Halkan waxaa ku arkaysaa macalinka casharada bixinaya. Casharada basic waa kuwana marka waa kuwana module 1 basic course casharada ilaa iyo waxaa waaye 13 cashar. Okay, marka rabto ku dhufsan kartaa. Marka ugu horeyso koorsada aad qaadayso waxay leedahay course objectives macnaha goals ee leedahay hadafka macnaha koorsada aad u qaadanaysid iyo waxyaabahaas. Waad akhrisanaysaa ujeedka ama goaliska request shuruudaha oo macnaha koorsadan saa ugu mid noqotid. Waxaa ka mid inaad tahay arday ee ka go'an tahay ka guulgaaridda forex trading iyo barashadiisa waa inaad leedahay ugu yaraan basic technology skills. Waxaa laga wadaa inaad kombiyuutarka fahamsantahay wax ka taqaanid. Waa inaad ka qayb qaadato quizzes-ka iyo discussions-ka oo macnaha qaybta markaa imaadid waxaa waa imtixaan iyo waxaa jiro quiz ayaa jiro. Okay, waa inaad ka qayb gasho xiisadaha live-ka ah ee aad week walba aad ku qoran tahay. Xiisada live aad ka qayb galaysaa. Qaybtan waxaa ku arkaysaa waxaa xaq u leedahay isbuuc inaad ka qayb gasho 3 xiiso oo live ah oo macallinkii uu ku siinayo casharadan ka baxsan. Okay, marka casharada waa kuwan halkan baa ka helaysaa adiga. Cashar koowaad waa taariikh, casharka labaad oo kale waa kana. Casharka koowaad oo kale hadaa ku dhufsano what is forex haddii aad ku dhufsano waa kana. Casharkii waad daawanaysaa play aad dhihi kartaa. Casharadan waa casharo sida hore in kuu sheegay oo sabuurada lagu sharxayo ma ahan casharada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somtech Academy. Waa casharka koowaad ee maaragtay barashada cilmiga forex-ka. Marka walaalayaal ma ahan casharada YouTube-ka yaalo run ahaantii oo free-ga ah oo maaragtay aad ku jawaareeysid. Casharadan ayagoo kala dhigdhigan oo step by step ah oo sabuurada lagu sharxayo waa kana dabcan fiirso. Cashar ka mid ah casharada ayaa ku dhufanaa. Waxaa lagu sharxayaa waa macnaha sabuurada lagu sharxaa casharadii ma garatay si aad maaragtay forex-ka waxaa waaye waa cashar walba marka wuxuu leeyahay main points oo macnaha oo ay tahay inaad macnaha calaamaystid oo main points-ka macnaha xog macnaha kooban macluumaad. Wuxuu leeyahay resource cashar walba macnaha kheyraad macnaha sida haddii aad buugaag oo kale kala soo degaysid. Tusaale ahaan lifaaqan hoose waxaa la kala soo deg buugga basic forex. Lifaaqan markaa buugtid wuxuu geenayaa qaybta ama page-ka aad kala soo degi lahayd maaragtay buugaagta aad kala soo degi lahayd oo af Soomaali ku qoran. Marka qaybahaas ay ka kooban tahay. Marka way badan yihiin waxyaabo badan ka kooban tahay run ahaantii oo aad ka heli kartid meeshan. Waxaana kale oo ka mid ah let's say hadda aan dhahno
wuxuu leeyahay xataa macnaha waxaad ka qayb gali kartaa imtixaan uu leeyahay oo macnaha sidoo kale wuxuu leeyahay library qaybta macnaha library-ga waxaad ka helaysaa buugaagta aad kala soo degi kartaa af Soomaali ah. Buugaag waxaa waaye yacni af Soomaali ku qoran ayaa ka helaysaa qaybta library-ga. Waxaad kaloo ka helaysaa Metro.4 iyo Metro.4 oo Windows iyo Android-ka ka helaysaa. Sidoo kale waxaad ka helaysaa meeshan quizzes-ka ama imtixaanka. Halkan markaa waa meesha imtixaanka aad ka gali lahayd. Marka imtixaanka hadaad rabto inaad test iska qaadid aad istijaabisid aqoontaada forex ama basic forex aa u leedahay, waxaad ku dooranaysaa markaa basic, intermediate iyo advanced. Marka adiga basic aad dooranaysaa. Basic markaad dooratay qaybta imtixaanka ayaa imaaday. Page-kii imtixaanka ayaan hadda soo galnay. Okay. qaybta imtixaanka soo galaysay soo gashay. Qaybaha marka imtixaanka aad ka shaqeynaysaa test exam. Waxaa la dhahaa beer soo socda midkeeba ah cross currency beer. Su'aasha saxda hadaad dooratid cagaar uu kusoo qoraa. Haddii su'aasha qaldaneed aad dooratid wuxuu kusoo qoraa guduud. Next ayaa leedahay. Image traders ayaa ka shaqeysta forex guud ahaan dunida. Had tusaale ahaan haddii aan dhaho 10 milyan ka shaqeysto, marka 10 milyan hadaad doorto cagaar ay noqonaysaa. Marka cagaar ay noqonaysaa next aa leeyahay. Sidoo kale adiga waa wadaysaa su'aalahan dhan baad ka shaqeyn. Marka haddii aad isku daydo inaad ka gudubto su'aasha wuxuu ku leeyahay fadlan dooro jawaabta lagu leeyahay. Marka ma fahantay? Adoo marka jawaab dooro macnaha ma gudbi kartid. Kadibna marka ugu dambeyso quiz-ka wallahi system-kan waa something academy waa system-ka ugu fiican ee wax laga baran karo. Waxaan leeyahay forex-ka haday noqoto qofkii macnaha doonaya in uu horumar ka gaaro ama si macnaha aad u harsareyso oo wax u barto oo aqoon heer sare helo. Marka haddii aad dhamayso quiz-ka wuxuu ku leeyahay isku day wacan waxaad ka jawaabtay 2 ka mid ah 11kii su'aal ee lagu weydiiyay. Percentage ahaan waxay noqonaysaa intaas. Okay. Marka percentage ahaan waxay noqonaysaa intaas ku noqonaysaa. Marka qaybtaas waa qaybta imtixaanaadka. Qayb waxaa ku soo kordhi rabnaa mar dhow insha Allah. Shahaadada uu qofku ka dalban karo. Dabcan shahaado qofka waa la siinayaa oo cadeynaysa inuu cilmigan dhameeyay. Casharadii waa kuwaana marka halkaan uu kala soco karaa. Kulli casharada waa kuwaana. Casharo aad u fara badan waaye oo xad aan lahayn. Marka wax kaasa kulley macluumaadkaas oo dhan meesha idinku jira asxaabay. Marka waxaan rajeynayaa qof walba inuu iska diiwaan geliyo oo ka mid noqdo insha Allah si uu macnaha ugu soo biiro koorsadan. Qof walba waxaan rajeynayaa inuu ka mid noqon doono uu iska diiwaan gali doono insha Allah. Haddii marka aad ku qanacdo fadlan insha Allah ta'ala adiga macnaha asxaabta la sii wadaag insha Allah ta'ala si aad u faa'iidaystid academy u fiican forex laga barto oo waliba academy-yaasha qaar marka fiiriyo imtixaan qofka ma la galsho oo quiz iyo waxaas macnaha ardayga waxa loo baahay in la mashquuliyo oo asii macnaha wixii su'aalo badan la weydiiyo maaragtay oo dareemo yacni in macnaha engagement oo dareemo fahantay. Marka sidaas u sameynay runtii aad iyo aad academy-gan inaan dhisno waxaa ku baxday $10,000 ku baxday runtii. Saasna waxa u sameynay si aan idinka macnaha wax tayo leh aan kaga iibino insha Allah. Gacmo furna ku soo dhaweynayna insha Allah.